dhowr iyo 20kii saac la soo dhaafay dhaqdhaqaaqyo xooggan oo dhanka ciidamada ah ayaa si weyn looga dareemayaa deegaano fara badan oo ku yaala gobolka Awdal gaar ahaan deegaanada kulaala xeebaha lagu hayo iyo Lowyacade xogaha wararka iyo macluumaadka halka aan ka helina ayaa waxay tilmaamayaan in laga cabsi qabo inay toos markii ugu horeysay ay isku dagaalaan ama isku farasaaraan ciidanka Somaliland iyo ciidanka beelweynta Ciise dhaqdhaqaaqyada halka ka socda ayaa dabcan ku tusinaya inay xaaladdu faraha ka baxday isla markaana la arki karo duulaano weyn oo ay rabaan in ciidanka Somaliland ay ku burburiyaan beesha Ciise bishii la soo dhaafay dabayaaqadeedii iyo bishan bilowga ah saddexdeedii laba jeer oo kala duwan ayaa boqolaal ciidamo ah Somaliland waxay ku daabushay deegaanada iyo degmooyinka kulaala dhanka xeebaha magaalada Lowyacade magaalada Lughaye magaalada Ceelgaal magaalada Seylac waxaa ku sugan boqolaal ciidanka militariga Somaliland magaalada Xudun magaalada la yiraahdo Durdur magaalada la yiraahdo Heemaal magaalada la yiraahdo Bolol magaalada la yiraahdo Xariirka iyo magaalada la yiraahdo Calimayd iyana waxaa ku sugan ciidanka beesha Ciise iyo kuwa Samaroon marka ciidanka Somaliland hadda waxay rabaan si aan xogta ku helayo in dhinaca xeebaha ay ka soo weeraraan beesha Ciise ciisuhuna iyagu way og yihiin oo gurmadka ugu fiican ciise waxay ka heli karaan Diridhabe Buurta City iyo sidoo kale deegaanada koonfurta dawlad deegaanka ku yaala wararka la helay hadaba waxay tilmaamayaan dhaqdhaqaaqa halka ka socda inuu yahay mid sareeya isla markaana laga cabsi qabo in dagaalo fool ah uu dhexmaro dhinacyada iyadoo oo dhinacyadu ay soo warinayaan in ay hub urursi xoog leh wadaan sargaal sare oo ka tirsan ciidanka beesha Ciise oo aan goor dhow la hadlay ayaa wuxuu ii sheegay in ay iyagu doonayaan in nabad iyo xasilooni lagu soo dabaalo gobolka laakiin ay u jeedaan in dhinacyo kale ay arinta hagardaacinayaan sargaalkan wuxuu hadalkiisa intaa ku daray in bilihii la soo dhaafay Somaliland ay wax badan xeerisay wax badan ay damacday in ay tartiibiso xaaladda laakiin la maqli waaye la dhageysan waaye taas oo uu sheegay inay ahayd wax laga shalayn doono haddii la isku dayo in la qalqalgeliyo amniga iyo xasiloonida ka jirta gobolka haddaba sargaal howlgab ah oo ka tirsan ciidanka Somaliland gaar ahaan ciidanka badda oo ah sargaalka ciidanka Somaliland u qaabilsan badda Lowyacade Lughaye Seylac iyo eriyadaas oo dhan ayaa waxaa la sheegay inuu shaqo ku maqnaa sargaalka haddaba waxaa la ogaadayba inuu beeshiisa Samaroon oo boqolaal hub u geeyay taasi oo dabcan ku tusinaysa in beesha Samaroon ay si dadban u dhex gashay militariga Somaliland iyo ciidanka badda isla markaana la soo warinayo in ay xaaladdu tagtay meel aan waxba laga qaban karin waxa wararka iyo macluumaadka la helayo ay tilmaamayaan in 24kii saac la soo dhaafay ay jirtay aragti la xiriirta in ciidanka Samaroon iyo ciidanka Somaliland dharka inta iska bixiyaan oo dhar caadi ah qaataan ay weerar qaadaan laakiin waxaa la soo warinayaa in qorshahaasi uu socon waayay qorshahaasi uu ful waayay qorshahaasuna uu miro dhali waayay taasoo keentay ayaa la leeyahay in la hakiyo wax walba oo ku saabsanaa la macaamilka Somaliland ugaas Mustafa beesha Ciise kol hore ayuu u sheegay inuusan isagu xilligan doonin aqbalayn inuu arko isagoo heshiis la garaya beesha reer Sheekh Isxaaq ama Somaliland sababtan wuxuu ku sheegay in Somaliland aysan ahayn dad ballan leh qowl leh waxna aan xirin wuxuu ku soo kordha xiisada Ciisaha iyo Samaroonka wararkana dambe ayaan idinku soo tabin doonaa markana madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa la soo warinayaa inuu iskaga ambabaxay magaalada Muqdisho isagoo afka saaray magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga wararka qaarna waxay leeyihiin Ankara markii uu ka dhamaado wuxuu tagi doonaa Qatar Farmaajo ololihiisa gudaha wuxuu u bedelay ololihiisa dibadda oo wuxuu rabaa inuu dhaqaale xoogan keensado kadibna uu dhaqaalahaasi ku dagaalamo Farmaajo waa mid ka mid ah siyaasiyiinta hadda marka laga hadlayo xaqiiqada ugu saameynta badan geyiga Soomaaliya uguna shacbiyada badan Farmaajo 24kii bishii hore ayay ahayd markii uu Turkida u tagay isla markaana uu ganacsato iyo dad Ilaahay waxsiiyo oo la soo kulmay isagoo u sheegay in dib u doorashadiisa ay ka taageeraan wuxuu sidaas si lamid ah Farmaajo yahay nin shacbiyad leh isla markaana Imaaraadka si weyn oo la dagaalamay wararka qaar waxay leeyihiin Imaaraadka waxay isku dayeen dhowr jeer in ay wada hadal la galaan Farmaajo laakiin taas isaga ayaa diiday oo u sheegay inaysan xilligan macquul ahayn munaasab ahayn inuu wada hadal la galo isagoo bedelkeeda taas sheegay in Imaaraadku ay
arrimaha gudaha Soomaaliya oo uusan xilligan raalli ka ahayn taasi. dad badan oo arrimaha la socda ayaa haddaba waxay leeyihiin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu hadda qaadayaa tallaabooyin dhowr ah oo uu doonayo in uu kula tartamo dadka yacni siyaasadda ay isku hayaan sida xubnaha mucaaradka oo isagu gooni daaq uu ka noqday iyo in sidaas si lamid ah dhaqaale uu ka soo helo siyaasiyiin caan ah iyo ganacsato caan ah oo Ilaahay wax siiyey kuwaas uu doonayo in uu loolankooda aad ugula tartamo isla markaana uu noqdo mas'uul heerkiisu sareeyo oo dabcan ka qayb qaadanaya doorashooyinka dalka ka dhacaya. qodobkeena ugu dambeeyana magaalada Baydhabo xaaladeedu waa ay degan tahay kadib dagaal halkaasi ka dhacay ciidamada Koonfur Galbeed ayaa dhagta dhiigga u daray maleeshiyaad hubeysan oo diidan nabadda iyo xasiloonida reer Koonfur Galbeed. wararka iyo macluumaadkan helayna waxay tilmaamayaan in Cabdicasiis Laftagareen uu jabiyey koox qowleysato ah oo Muqdisho lacaga laga soo siiyey kuwaas oo raba inay burburiyaan amniga iyo xasiloonida ka jirta magaalada Baydhabo. saraakiishu waxay hadalkooda intaa ku dareen in Cabdicasiis Laftagareen uu wax badan xiriye isla markaana uu isku dayay in sheekada hoos loo dhago laakiin shakhsiyaad kale ay fahmi waayeen caqabadna ay ku noqdeen taas oo la sheegay in ay xaaladda gelisay meel aan waxba laga qaban karin. waxay wararkay macluumaadku sidoo kale intaa ku darayaan in Cabdicasiis Laftagareen uu sheegay xubnuhu la kulmay ee saraakiisha ah haddii mar kale tallaabo xaggooda loo soo qaado inay tallaabo tobnaad qaadaan oo ay burburiyaan cid walba oo xasiloonida iyo nabadda markaasi wax u dhimaysa. Cabdicasiis Laftagareen wuxuu sidoo kale sheegay in uu kulan la qaadan doono ciidamada Itoobiyaanka ah taas oo sheegay in ay doonayaan in la soo gabagabeeyo joogitaankooda maleeshiyaadka magaalada ka dhex dagaalamaya oo la sheegay inay hadda caqabad ku yihiin nabadda iyo xasiloonida halkaasi ka jirta. 24kii saac ee la soo dhaafay sidoo kale waxaa jiray aragtiyo ay dad badan soo jeediyeen oo ku saabsan in Laftagareen uu si degdeg ah u soo gabagabeeyo kooxdan qowleysatada ah laakiin waxaa la sheegay in iyadoo shacabka loo turayo wax badan la xeeriyay wax xeerikiisna ama wixii la xeerinayna dad badan ay sheegeen in ay dagaalka ku sii dheereysay Cabdicasiis Laftagareen. dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale la leeyahay way khiyaanta Cabdicasiis Laftagareen sababtoo ah ciidanka ka dagaalamaya magaalada Baydhabo waa ciidamo ka amar qaata wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowladda Soomaaliya Xasan Eelayn in la yiraahdo ninkaas oo dhowr jeer amniga Baydhabo qalqalgeliyay nabadda xasiloonida Baydhabo diidan laakiin ciidankiisii wax la dilay wax la qabtay iyo wax baadiye u cararay oo shabaab u galay ay noqdeen sida ay wararku tilmaamayaan. gudaha saaxiibayaal wararkeena intaas ay ku dhan yihiin haday tahay markii kugu horeysay ku soo biray channelka Anisa Daacad warar iyo warbixino halkan aan ku daabacnaa iyo aad mar walba heli doontaa ay soo dhawow.